kulankani ay yeesheen golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Cabdiwali Sheekh Axmed waxaana dood dheer kadib goluhu cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen hindisa sharciyeedka tariifada canshuuraha bariga oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda. ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed in ay bixiyaan canshuuraha ku waajibay isagoona tilmaamay in haddii dakhliga dalka uu bato ay kordhayaan adeegyada la gaarsiinayo bulshada Soomaaliyeed. waxa aan ka soo baxnay shirkii golaha wasiirada oo xubnaha golaha wasiirada isugu yimaadeen oo caadiga ahaa ahmiyadda maanta inuu ka hadalnay waxa ugu weyneyd dhamaystirka iyo dardargelinta dakhli ururinta sida la socotaan xukuumadda waxaa saaran howlo lixaad leh oo aad u ballaaran nabadgelyada inay sugto in hay'adihii ay shaqeeyaan waxaasoo dhanna waxaa lagu wadayaa in la helo dakhli marka dalkeenna dakhli badan baa laga ururin karaa waanu isku fillaan karaa waxaan aad uga hadalnay markaas sidii dakhligaas loo waxayn lahaa wixii tafaasiila kulleyba wasaaradda maaliyadda ayaa bixin doonta laakiin waxaynu go'aansanay in la hirgeliyo canshuuraha biriga oo intii muddo ah ka maqnaa canshuuraha birigana ahmiyad weyn iyo qayb weyn ayay kaga jiraan dakhliga dawladda marka taas ayaa la ansixiyey maantayto laakiin hufidda iyo hagaajinta dakhliga iyo kharashka waxay ka mid tahay mudnaanaha weyn ee xukuumaddan ay ka shaqayn doonto si wax ku oolnimada dawladdeena iyo waxtarnimada hay'aadkeenu ay u noqdaan mid sare u kacda oo dhammaystiran. ra'iisul wasaaraha ayaa gabagabadii sheegay in sanadkan dawladdiisu ay muhiimadda koowaad siinayso 3 arrimood oo kale ah amniga, dakhliga iyo hay'ado dawladeed oo shaqaynaya. Maxamed Bilageelle, Somsa TV, magaalada Muqdisho.